sanadkan 2026 ganacsiyada aan weli u adeegsan AI-ga suuqgeyntooda waxay la mid yihiin dad fariimo isugu diraya fardo xilli dunida ku socota diyaarado. Maalin kasta waxaa saacado badan ku lumisaa samaynta contacti, ka jawaabista fariimaha macaamiisha iyo fahamka wax suuqu doonayo. halka tartamayaasha casriga ee AI-ga uga faa'iideysanayaan inay shaqooyin badan ku qabtaan daqiiqado gudahood. Suuqa maanta qofka ugu dhaqsiyaha badan ayaa guuleysta. haddii aad gaabiso si fudud ayaa lagu dhaafayaa, laakiin halkan ayaa sabaax ajirsi ka soo galaysa. Waxaan isticmaalnaa AI automation si aan si degdeg ah ugu fahamno isbedelada suuqa, u dhisno nidaamyo si toos ah ugu jawaabaya fariimaha macaamiisha, una abuurno contacti iyo nashqado si xoogan u soo jiita dareenka dadka. Tiknoolajiyadda maanta jirta adiga ha kuu shaqayso, halkii aad adigu maalintii oo dhan u shaqayn lahayd. haddii aad rabto ganacsi si casri ah u shaqeeya, si dhaqso lehna u koraya, una diyaarsan mustaqbalka dijitaalka, sabaax agency ayaa kuu diyaara si ay kaaga dabageyso isbedelada xoogan ee dhanka suuqgeynta casriga iyo isticmaalka AI-ga dhanka horumarinta ganacsigaaga.